oo loogu talagalay dadkaas dhibaataysan oo hoy la'aanta ah in hoy loo sameeyo waaro guryo fiican oo dhagax ah oo qoyskiiba 2 qol ka kooban arrintaas waa bilow laakiin maalin ay dhamaad tahayna hadduu ilaahayna gaarsiiyo waanu joogi doonaa oo dhammaan aan u helno dadkaas inaan dejinno halkan dhulka ilaahayna siiyo maaragtay khayraadkeenna si deeqsinimo ah ay dawladda Jubbaland ugu deeqday 5 kilomitir oo square ah in dadka la dejiyo maadaama aad arkaysaan siday u nool yihiin iyo guryaha ay ku jiraan oo innaba ha yaraatee argagax ku ah nolosha bini'aadamka oo qoys dhan aad arkaysaan in bac hoosteed ay ku nool yihiin carruurtii hooyadii iyo aabbihii arrintaas oo runtii waxay aad iyo aad looga calool xumaadaa arrintaas oo aan la aqbali karin arrintaas oo intuu ilaahay wax siiyey iyo caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba ay tahay inay wax ka qabtaan dawladda Jubbaland inta awoodeeda ah ay la tacaalayso sida la sheegay halkan waa bilow 80 guri oo UNHCR ay bilaabayso NRC oo 50 guri ku xijin doonto waxaan rajaynaynaa marka inay isu bedesho dhammaan dadka tiradooda in la dejiyo sidii horeba loo sameeyay oo wajigii hore uu ku guuleystay waa jirtay waqti dheer ay qaadatay waxa la isku hayay waxay ahayd war haddii dadka wax loo qabanayo wax u qalmo qofka bini'aadamka inuu ku noolaadaan u qabanno inta kharash uu naga geli lahaa guryo tayadooda xun tahay oo ama maxay ahayd jiingad iyo carshaan lagu noolaan karin hal loo helo in la helo guryo halka waara noqon karo oo ay dadka ku noolaan karaan arrintaas waqti dheer baa la geliyay in badan baa la isku fahmi waayay laakiin aakhir waxa lagu guuleystay أنا أمهد علينا وزارة هولها جود يجورين تتيم كي إنجنير هذا ها وأرنتها قيمين تكسمي جوريا معنا له كاست جودا أما قيمة هذا أنا ويري هاي أو الإسلاقات نقول يانا حل وارو إن لو جولستين لو السماية وزارة هان سدد ده ومدل بقيب كل هاي مدي جان كقيمة سو إن لو نوران كرا وواحد اسمه كران mid qiimayso markii wax la dhisayo in guryihii maaragtay meelihii ciyaadada sida masaajidada iyo madrasooyinkii ayna ka harin wasaaradda arrimaha gudaha oo lead ministers ka ahayd wasaaradda amniga oo laanteeda waxba la qaban karin oo haddaan amnigii la sugin ay cidnaba salka dhigi karin oo ayagana waqti geliyo saraakiisha ay habeen imaan taagan yihiin wasaaradda beeraha qayb ku lahayd wasaaradahaas howlaha guud oo ayna naqshadayntii iyo in meesha la magaaleeyo hormuud ka noqon karto waxa soo dhan wala isku tagay iyo intaas oo hadii dawladdu waa qof jirkiisa oo kale markaanu dib u eegnay 9 wasaaradood iyo hay'adda qaxootiga barakacayaasha intaas ayaa midba waajibaad gooni ah ka gudatay barnaamijkan siina wadi doonto ilaa guusha laga gaaro oo halkaas ay ka soo baxdo magaalo ay dad ku nool yihiin oo ay u baxsadeen marka ugu mahad celinaynaa deeq bixiyaasha hay'adaha UNHCR iyo NRC oo hadda hormuud ka noqday barnaamijkan inay iyaga bilaabaan waxaan rajaynaynaa inay inta kalena ayagoo qaadanaya naqshadda iyo projectiga tijaabadiisii koobaad sida loo sameeyay oo waqti badan ku qaadanayna daraasad inay inta kalena gacan ka geysan doonaan in dadka dhamaantood loo helo hooy ay ku noolaadaan oo carruurteenna ku soo barbaaraan oo wax ku bartaan dhamaantiin waa idin mahad celinayaa inta qayb ka qaadatay faano la fari kama qodno waa shaqo adag la rabo inaan ka gungaarno haddii Ilaahay yiraahdo annagoo isku duuban oo isku niyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.